bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah jenaraal aduwaa yuusuf raage oo ciidanka u laab qaboojiyey kadib rajabeelkii ku dhacay culays ka jira garoonka muqdisho iyo turkish airline oo joojisay duulimaadyada howlgal dad fara badan lagu soo qabtay oo laga sameeyey muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inagu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabi raale ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leedinkaga codsanaynaa inaad janalka subscribe inoo saadhaan like-na ay nagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle saaxiibayaal sida hordhac warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno jenaraal aduwaa yuusuf raage taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa ciidanka u laab qaboojiyey kadib rajabeelkii ku dhacay 15 bisha May aynu ku guda jirno taasoo noqotay hameen ka duwan hameenada kale maadaama madaxweynihii muhiimada siin jiray ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed looga adkaaday doorashadaasi taasoo dagaal ay la galeen wadamo shisheeye iyo sidoo kale cadow gudaha ah kuwaasoo doonaya in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo nolosha dadka Soomaaliyeed ay hoos u dhigaan hameenkaasi waxaa hoos u dhacday rajadii ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ay ka qabeen inay la wareegaan amniga guud ee dalka sidoo kalena ay noqdaan kuwa ka tayo badan dhigooda waa Kenya iyo sidoo kale Itoobiya waxaa hadda muuqda in ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ay niyad jab badan ka soo wajahday dhinacaasi balse taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed jenaraal aduwaa yuusuf raage ayaa tilmaamay ciidankana u sheegay in aan mushaarkooda la taaban karin taasina ay ka xigaan in ay dhigaan tuutaha oo isaga tagaan shaqada ciidannimo maadaama ciidanku uu yahay lafdhabarta amniga guud ee dalkana sugi kadha iyadoo la rajeynayo in dhamaadka 2023 iyo horaanta 2024 ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed gacanta loo geliyo amniga guud ee dalka ayaa hadda waxaa halkaasi kusoo dhamaanaya rajada ay lahaayeen ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee ahayd in ciidamadu ay la wareegaan amniga guud ee dalka maadaama ciidamo Mareykan ah oo dalbaday Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena ciidamadii howlgalka nabad ilaalinta ee ATMIS loo bedelay magaciisi uu kordhin doono joogitaanka ay joogayaan gudaha magaalada Muqdisho ciidamada ayaa la arkayay iyaga oo rajabeel ka muujinaya maamulka Xasan Sheekh Maxamuud maadaama qaarkood ay kaga maqan yihiin mushaaraad kor u dhaafay ilaa 3,000 oo uusan wax mushaar ah askarta qaar uusan siin muddadii uu xukunka joogay balse taasi waxaa hoos u dhigay madaxweyne Farmaajo kaasoo caruurtiisa ka dhigtay ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed dhammaanna si gooni ah u ilaalin jiray dhammaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa rajabeel hadda u muuqda balse hadda hadalkan ka soo baxay jenaraal aduwaa yuusuf raage taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed waxa uu muujinayaa in ugu yaraan loo dhicin karo mushaaraadkooda balse taasi jenaraal aduwaa yuusuf raage inuu ku guuleysanayo iyo in kala macad maadaama madaxweynaha dalka markaasi hogaaminayo ay isaga siyaasadiisu kow ka noqon kordha amniga ama si shakhsiyan oo kale ah howlihiisa gudaha uu wadan karo meesha ugu weyn ee shacabka Soomaaliyeed ay ka fiirinayaan maamulka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay horey u soo arkeen ayaa hadda ah in ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed mushaarkooda la musuqmaasuqin tayadooda tababarkooda iyo sidoo kale wax walba oo wanaagsan ay ciidanka dhinaciisa ka fiirin doonaan maadaama shacabka aan hadda loo haynin fursad ay dalkani kusi maamushaan dalka hadda waxa uu muuqdaa inuu gacanta u galay koox gooni ah kuwaasoo doonaya inay ka shaqeystaan marka loo fiiriyo dhinaca guuleystay taasoo muujinaysa in ummadda Soomaaliyeed looga guuleystay doorashadii 15 bisha May ka dhacday teendhada Afisyoone taasoo ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga dheehan karaa wajiyada shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu xun yihiin guuldarada soo gaadhay madaxweynaha hadda xukunka sii banaynaya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse hadda ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed waxa ay taagan yihiin qoys iyo sidoo kale rajabeel maadaama madaxweynihii ilmuhiisa ka dhigtay oo hadda fursada ka baxay oo aysan
fursad u heli doonin in ay ku xisaabtamaan mushaar usoo dhaca bisha dabayaaqadeeda. sidoo kale saaxiibayaal waxaa la fiirin doonaa wasiirka amniga, gaashaandhigga iyo wasiirada kale markaasi lasoo magacaabayo inay noqdaan kuwo u adeegi kara bulshadooda iyo sidoo kale inay noqdaan kuwo ka adeeganaya bulshada. balse jawaabta shacabka Soomaaliyeed waxay noqonaysaa in la fiirin doono shaqsiga markaasi laga dhigi doono wasiirka koowaad kaasoo ay ku dagaalamayaan wadamo shisheeye iyo sidoo kale maamul goboleedyada qaar sida Jubbaland iyo Puntland. saaxiibayaal ila xogogaala ayaa inoo xaqiijiyay in Kenya ay doonayso in ra'iisul wasaaraha dhankeeda ka yimaado halka Imaaraadku isna sidoo kale uu doonayo, balse ma cadda Xasan Sheekh Maxamuud labadaasi garab ee doorashada garabka ku siiyay inuu midkood raaci doono iyo inuu meel kale wax ka keeni doono. Xasan Sheekh Maxamuud oo kol hore soo noqday madaxweynaha hogaamiye Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu noqonayaa markii labaad inuu nasiib u yeeshay inuu hogaamiyo ummadda Soomaaliyeed. taasi ummadda Soomaaliyeed ma aysan soo dhaweyn meel walba oo ay joogaan, balse nasiibkiisa iyo qadarka Eebbe ayaa halkaasi geeyay, waxaana laga rajaynayaa inuu isbedel muuqda la yimaado haddii 100 maalmood oo u horeeya wax isbedel laga waayo maamulkiisa. waxay noqonaysaa in shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan qarannimada gobolku u dhici karo. General Oduwa Yuusuf Raage oo si gooni ah ula hadlay saraakiisha iyo sidoo kale saraakiil xigeenada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu tilmaamay inuu ku dagaalami doono si mushaarkooda bil walba ugu soo dhaco. haddii uu taas awoodi waayana ay iyagu markaasi go'aan ka qaadan karaan, balse inta ka horeysa isaga ka warasugaan hadduu Rabbi raalli ka noqdo. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah culays ka jira garoonka Muqdisho iyo sidoo kale Turkish Airlines oo joojisay duulimaadyada gudaha magaalada Muqdisho. shirkadda duulimaadyada Turkish Airlines ayaa ku dhawaaqday inay joojisay duulimaadyada kadib culays ka jira garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. war-saxaafadeed shirkaddu soo saartay ayay ku sheegtay laga bilaabo 19 May ilaa 28 May aysan wax duulimaad ka sameyn doonin magaalada Muqdisho. sababta ay shirkadda Turkish Airlines ku sheegtay in ay shidaal yari ay soo food saartay garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ay ugu wacan tahay inta laga xalinayo inay duulimaadyada joojiso. 10 cisho ee sameyntiisa jiri doonto ayaa waxaa hakad la geliyay dadka soo safri lahaa Istanbul Turki iyo kuwa ka bixi lahaa Muqdisho u socday Istanbul iyada oo la sheegayo arday iyo dad caafimaad u socday xanibaadaasi ay saameyn ku yeelatay. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah howlgal dad fara badan lagu soo qabtay ayaa laga sameeyay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa xalay howlgal xoogan ka sameeyay xaafado ka tirsan degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir kuwaas oo lagu soo qabqabtay dad u badan dhalinyaro xaafadahooda iyo wadooyinka joogay. ciidamada ayaa howlgalka ka sameeyay wadooyinka jidcadayaasha ee xaafadaha iyo guryaha qaar oo ay baaritaan la xiriira amni xaqiijin ay ka sameynayeen sida ay sheegeen saraakiisha horkacay howlgalla. taliyaha saldhigga booliiska degmada Warta Nabad Cabdullaahi Xasan Cali howlgalka horkacay ayaa sheegay in ay baaritaan amni xaqiijin ku saabsan guryaha qaar iyo gaadiidka noocyadooda kala duwan, isla markaana qorshaha koowaad uu yahay la dagaalanka ciyaal weerada oo ah kuwa xaafadda mar walba ku dagaalama. waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray taliyaha sidoo kale inay baadi goobayaan kooxaha burcadda ah ee dadka teleefanada ka dhaca iyo cid kasta oo lid ku ah amniga, isaga oo sheegay in howlgallada ay noqon doonaan kuwa joogta. qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir dadka ku nool ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxay ka cabanayeen kooxaha burcadda ah oo dadka teleefanada ka dhacay iyo ciyaal weerar dhibaato gaar ah ku sii haya oo uga daranba kuwa wax dhacay. waa hagaag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warka aad ka daawanaysaan Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad janaalka subscribe inoo saadhaan, laakiin ay nagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka leh.